مدن مسبح عبدي قراه وزير حبنا كترسن دمان مدشات ka soo qayb xafladan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh madaxweyne halkan maanta waxaad noo dhagax dhigi doontaa sida Dr. Xamed ka sheekeeyay qaybta umulaha iyo dhalaanka ee cusbitaalka guud waa qayb kamid ah dadaalkii aad nafartay in loo galo sidii loo hagaajin lahaa cusbitaalka guud adeega uu bixiyana kor loogu qaadi lahaa waa qayb kamid ah qaybo kale badan waa jireen waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Musabix Cabdi Hogaamiyo ee ku dartay budgetkii sanadkii hore 2018kii inaanu qaybta cusbitaalka ka hirgelino waxaan kaloo mahadcelinayaa UNFPA hay'adda la yiraahdo oo iyaduna waxaan aad u buurayn laakiin waxtar weyn lahayd nagu darsatay oo ka qayb gashay mashruucan waxaan madaxweyne kale kuugu mahadcelinayaa dadaalka badan iyo go'aamada badan ee hadii jeer naladu taagtay inaan cusbitaalka ka bedelo adeegu bixiyana aan kor u qaadno waana sii wadi doonaa insha Allah waxaan kaloo ku darayaa dadweynaha reer Hargeysa waxaan jecelahay inaan u sheego cusbitaalka guud ee Hargeysa ama guriga hospitalku ka batay dadweynihii adeegga soo dooranayay aad bay uga bateen madaxweyne sidii aynu hore noogu go'aamisay magaaladu waxay u baahan tahay cusbitaal labaad oo guud waxaan rajaynayaa dadweynaha reer Hargeysa inay ka qayb qaataan cusbitaalka dhismihiisa iyo hagaajintiisa iyo daryeelkiisaba madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynayaa in noogu baarakto qaybta dhalaanka iyo carruurta ee cusbitaalka guud ee Hargeysa